warxabada aa guursaday ibni aadan ka foolxun weligii ma arkiniyo brother LB maalmahan maxaa kugu dhacay oo la murugaysantaa brother saxaab stress ay buuxano waaye stress ku kaysa maxaa way balnooshay waaye maxaa naga qanaysaa macna saxaab se ku sheegay stress okay ana ku sheegay bal soo fadhiis ii sheeg waaye soo fadhiisana ku sheegay saaxiibo ani waa guursaday oo hadda ma midaas la murugoonaysaa taasoo kale brother waxaa la dhahaa ma sha Allah adi wax ma fahmaysidniyo warxabada aa guursaday ibni aadan ka foolxun weligii ma arkiniyo oo hadday foolxun tahay maxaa markii hore kuu geeyey subxaanallah anaa kuu sheegaa wax ii geeyey markii hore saaxiibo waxbadan taajirad waay taajirad lacagta adduunka ku fadhisaa oo ma iska haysatid markaa taasoo kale waa nimcatu fushuq ma sha Allah asaxo ma sha Allah iyo subxaanallah ay kaaga dhigtay laakiin wax ma ogid lacagteeda maxay ii tiri shilin inay siisamaba ogole oo markaa way gacan adag tahay miya subxaanallah ma iskaga tagtid markaa sidee uga tagaa saxaabo guri weyn ee ii dhistay lacagteedii igu gaday guri weyn ii hagaajisay see uga tagaa marka oo adaaba nasiibka kaa batabe haddiiba guri weyn lagu gaday ragga dhan intaasay raadinayaan ma balla wada heestaba nimcadaasoo kale waxaa la dhahaa ma sha Allah fiiraadi adi gurigaa raadinoosaa gurigaa ka fikiroosaa laakiin waxaad ogeynaa jira de gurigii dhan waa gubtabe waa gubtay bul Allah si uu gubtaa saga dhan subxaanallah oo hadda maxaa dhacayna iyadana gudaha ku jirtay way ku gubatay ma sha Allah hadda su'aalaha ku weydiiye waraadi naagtee dhimatay ma sha Allah dhahoosaa hadda su'aalaha ku weydiiye wax walaalo ah aboowe ah abaaye ah oo dhaxal sugayaal ah qofta ma la dhasheen bal warniyo qof kale oo jooga ma jiro hooyo aabe aboowe ilmo adeer war wax la dhashay xitaa abaay wax jooga ma jirto aniga bisa soo haray cidna ka soo haraniyo oo hadda adiga nimceystay ma sha Allah maxaa ka wadaade taajira noqotano lacagta gabadha dhaxal sugaa tahay dhaxalka dhan guriga dhan wax walba lacagta dhan adaa la wareegay de waxaad ogeynaa jira hadda maxaan ogeyn ee yare guriga uga tagtay oo hadda ma waxa ay leedahay dhaxalkii dhan waxaa lagu qoray eygii ha oo hadda su'aalaha ku weydiiye eyga wax yar oo cilaaqaad ay maaragtay saaxiibtinimo ah makaala dhexaysay war ani niyow eyga weligii allahay ma la saaxiibin korkiisa ma taabin mana salaaxin waaba ii roonaaleedba markii hore haddaas salaaxi lahaay hadda dhaxalka wax ka qaada lahaaye oo hadda ma taasaa dhib leh dhaxalka labaa ku nahnay nawadi eyga intuu tagno aan intuu soo kaxaysano aan intuu qubeyno aan u raaxayno salaaxayna taasna dhib ma lahanba wax weyn ha ka dhigin that's not big deal eygu hadda waa taajir soconayo cagcadaynayo waa inaa maaragta waxaa waaye annagana aan aqli isku yeelnaa oo eyga aan korsanaa oo u raaxaynaa oo isbarnaa